واتهاي سمكوها سوماليلاند وياهاي waxaynu guda galaynaa xafladeennii ayaynu hore ugu sii soconaynaa haddii ilaahaydmo aynu ku soo dhawaynaynay ku sharfaynay xildhibaan welcome to London aad iyo aad baan ku soo dhawaynaa qalbi wanaagsan niyad wanaagsan iyo karaamo iyo sharaf waxa kaloo caawa oo la sii wada xildhibaanku inay labada garab ka soo galaan xildhibaan abwaan jiheeye iyo abwaan Douglas ولما أوان أو محترمين أو سوي اللغة قانو سوماليلاند يعرقا أفر سوماليا كهالله أديات باوما تتهين أنيقا أو أحفيان كي حسد وينها ودالي يوكي وعن الكسو دوين يا عمفران ويلكم أيان دماتي بإذن الله حاسد أنه مسو أتشيمتين غروح البضان إن أنا عاوة حفلتاً سو دوين تأه لقلقا يبقشان ولالكي صاحبكي لكان اللي رضى بصوت كرني وإبراهيم حامد سامع اللي إبراهيم حامد سامع وقع بحقيقة يقول ولا عرف النمو أنا سأتعني إلا يدنيكي قرنا يا شعبويسكي إلا فرعو إلا بربرة إلا دينات كلام كسبوا يقالين الاحترام رعنا حيوان كدونو إبراهيم يقول قرنا لكن تذكر أصل هرجيساوي هي سوي بيسوق هاي قرنا waxaa kaloo nasiib aabahay iyo aabihiina saaxiib kale soo ahaayeen hooyadiina saaxiib bay ahaayeen he was my next door neighbor aan soo wada karnay taas oo sanadoodna isla soconay aan farxad gaara emotionally ayay ii tahay waxaan ku leeyahay my brother welcome to UK welcome to London welcome to Southall oo in badan xafladaha aan ku noqotay oo dadka intooda badan ay yaqaanaan اوكي waxaynu guda galaynaa barnaamijkeennii xafladeennii quruxda badnayd caawa xildhibaanka ugu talagalnay sidii waajibkeena ugu haylaayada quraana iyo cadwadaad calwadaad sorry calwadaad halkan soo istaaga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. وقدومي مقالو قدومي عبد الرشيد مقالو waxaan ka cudur daaranayaa in waqtiga aynu ilaalino si aynu uga faa'iideysano waqtiga inta badan caawa waxaynu siin doonaa xildhibaanka inoo martida ah marka idinkoo iga raaliya waynu ilaalinaynaa waqtiga thank you very much الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأول إلهي بايس كما هذله هل كان ينقو كل مية ما هدك هو بعد السجالة سبحانه وتعالى لما أنتين كسوق بقرياشة سواء أشيبي حفلتنا ينكون ماموسيني ولكن أي نكون ماموسيني وحويان أتسوء أشيبتين وحن لا يهاي وتكون هتسنتين إنما يهب لبا مركو ورثة وحنو ما هدنا غيا هبلها قيمة بدن أو الآن تيد أنا يصورت كشين inay hawshani inoo hirgasho oo mar walba xisbiga wadanina oo ah laf dhabar haday tahay hawl qabad iyo haday tahay waxtarba laf dhabar oo ah waxaan kaloo u mahadnaqayaa ragii hawshan aad uga shaqeeyay oo qiimaha badan oo aan ka xusi karo Mustafa Kennedy iyo Mustafa Qorane oo aad uga qayb qaatay waxa weeyaan iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa gabdhaha qiimaha badan hawshan ka soo wada shaqeeyay dhamaantood magacyadooda ma koobi karo way badan yihiin waxaan kale oo doonaya caawa inaan halkan ku soo dhaweeyo xildhibaan Khadar waxaan leeyahay xildhibaan soo dhawow UK ku soo dhawow qalbi furan iyo niyad san baan kugu soo dhaweynaynaa waad u qalantaa intan iyo in ka badan ba inaan kugu soo dhaweyno maalinta oo arbaca ah oo maalin shaqo ahayd oo ay ka kala yimaadeen Bristol Birmingham Sheffield 4 hours bay jiraan Sheffield
waxay muujinaysaa wanaagga lagu hayo waad u qalantaa intaa iyo in ka badanba adiga oo baxaya awgeed ayaynu meel sabti aynu isugu nimaadno oo jaaliyadda reer Somaliland oo dhani ay isugu timaado aanu ku samayn lahayn laakiin waqtiga daciriiri nagu noqday waxaan ku leenahay mar walba waan ku soo dhaweynaynaa waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha jaaliyadda oo inala jooga Nuur iyo xogayay qaaradda Yurub Maxamed Carab waxaan leeyahay dhamaantiinba waad mahadsantihiin sida uu sheegay xafladana hadal badani inoogama banaana maadaama aynu leenahay soo dhawow waxaan leenahay soo dhawow labada abwaan iyaguna halkan caawayna la jooga waxaan leeyahay soo dhawaada idinkuna inkastoo reer Ingiriis uu ahaa abwaan Douglas iyo abwaan Jiheeye aad baan ugu faraxsanahay inaad caawa halkan nala joogtaan oo xildhibaanka nala soo dhaweysaan aad baan idinkuna u mahadsantihiin 100% anigii baa ku dheeraaday ujeedadu waxay ahayd inaan sameeyo uun inta guud ee dadka u mahadnaqayo oo dadkii oo farabatay awgeed marka ku soo dhawow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiye magaalo sidaa uu inoogu soo gaabiyey alxamdulillahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciin calaa umuri dunya waddiin xildhibaanka labada abwaan hablaheena qaaliga ah dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan gaar ahaan kuwa ka yimid gobolada Bristol iyo Sheffield iyo Birmingham aad iyo aad baa mahadsantihiin mahadnaqa waxaan hal kelmad odhanayaa hablaha oo runtii lafdhabar u ah hawshan aynu hadda halkan u fadhino ama si xafladda qabqaabadeeda oon ka xusi karo rooda caddaysay oon leeyahay inta kale aan kuu marinaya hablihii kula shaqaynayey intaa haddaan intaa kaga tago laba kelmadood ayaan anigu hadalkayga ku darsanayaa oo aan xoojinaya kelmaddii uu yidhi Nuur walaalayaal haddaynu Somaliland nahay waxaynu ku kala duwanna waxaa ka badan waxaynu ku madaysannahay oo kow ka tahay qarannimada Somaliland iyo difaaceedu waxaynu u baahannahay inaynu ka wada shaqeyno waxaynu ka midaysannahay waddankeena xaalad adag ayuu ku jiraa maantaan ka yimi waxaan ka yimi waddan midaysan oo lixiisii gobol midaysantay oo lagu dhigto maxadada caalamiga ah horumarkii iyo geedi socodkii aynu nabadda u soo marnay maantana waddankeenu halku marayo waa ogtihiin waxaynu kaga bixi karnaa marxaladda aynu ku jirno inagoo gacan maha isqabsanna u midowna danta guud ee dalka taasaynu halku dhigeennu yahay aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Mustafa Qorane بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انت كبعدي وحان رنتي وحال رجري كل مكان لها مقال ملك استاو حلدا كلمة هذا كلمة عاو وحوية وسودوين أنو سودوين إنه حلبان إبراهيم محمد جامع خضر قول iyo runtii labada abwaan ee harada fadhiya aad baan soo dhaweynaya runtii aad baa wada salaamaya sidoo kale waxaan hambalinayaa oo aad ugu hambalin mahadnaqayaa hablihii iyo nimadii xafladda noo soo agaasimay iyo marti sharafka kale ee ka soo qayb galayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan raacsanayaa kelmad ah reer wadani runtii waxaan leeyahay isu diyaariya inaa ururisaan midaynta qarankii jamhuuriyadda Somaliland sidaa u wada fadhiisan maanta wada fadhidaan in ka shaqeysaan isu keenkiisa maadaama ay ku guuldareysatay xukuumaddii maanta waddanka joogto ay noqotay tii kala dirtay gobolladii maqnaa iyo dadkii naga maqnaana aynu baadi doono dadka la soo celiyo oo walaalnimadoodii iyo xilnimadoodii dib ay ugu soo noqoto baan kula dardaarmi lahaa dhammaan taageerayaasha iyo madaxda xisbiga wadaniba waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiye Sanyare waxaynu intaynaan u wareegin xaqii haweenweynaha xisbiga wadani oo Umul Khayr iyo Saynab Qorjuf iyo
hablad fara badan oo u soo dhabaraaday xisbiga oo rukumaday ku taagan aanan u gudbin waxaan jeclahay inaan xuso rugcadda siyaasadeed qoraa weyn oo inala jooga oo runtii ragga waddanku uu baahan yahay waa Caraale oo xagga iga soo eegaya Caraale waynu salaaminaa si weyn baynu salaaminaa hadduu codsaday in laba kalmood siinana waynu siinayna Caraale laba kalmood raaci horta waxaan salaamayaa habar wadaagay xildhibaanka oo caawa ay ugu horeyso waa salaamayaa abwaaniintana waa salaamayaa oo aniga wajigoodu arki jiray ina macalacaydiin isagana waa salaamayaa inteena kale weyn wada joognay inta markaan kaga gudbo xildhibaanka hawlo badan baa u yaala hawsha ugu weyn oo taalana soo dhaweyntiisa ka bacdi waa hawsha xisbigiisa iyo ka hawlgalkiisa iyo waxa qurbaha looga baahan yahay qurbaha iyo guduhuna waa kala laba sidaa horta u kala saara talabaadna waxa weeyaan tii qaranka ee guud iyo difaac iyo xuduudaha taasna way ku taalaa waana ta xisbigiinu ku dhacayo ama uu ku soo baxayo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin marka hore dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa sida fiican ee xafladan uga soo qayb gasheen taasoo ina tusaysaa xildhibaanku culayska uu inagu leeyahay ayadoo caawa habeen arbaca ah meelo fogfog looga yimi in intaasoo dhan ay xildhibaanka u timaado aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya dhammaantiinba waa nin culus waa ninka soo jeeda Somaliland weliba dee magaalada Hargeysa marka aan kelmadda mahadnaqa ka yimaado aniga kelmaddeedu waxa weeye caawa dee inaynu soo dhaweyno xildhibaanka oo ay fadhiyaan laba nin oo ayaguna inagu culculus oo ah nimankii dee inoogu qaabilsanaa arrimaha suugaanta jiheeyo habeenoodan isagana ag fadhinay iyo abwaankeena Douglas ayagana waan soo dhaweynayaa walaalayaal inagu haddaynu nahay reer Somaliland oo qurba joog ah kelmaddeena waxay weeye had iyo jeer inaynu wax kasta oo waddankeena ka socda wanaagiisana aynu ka qayb qaadanno wixii dhibaato ee jirtana in allaale intii aynu demin karno oo aynu yareyn karno inaynu yareyno Somaliland waa meel bay ku wada fadhidaa dad walaalo baynu nahay waynu soo baahannahay waxa weeye kelmaddeedu caawa war waa ogtiin Somaliland marxalad ag baynu maraynaa haddaan gacmaha la isqabsan waxbay noo suurtagali maayaan marka waxaan leeyahay in maskaxda ku hayno aad iyo aad baan idin salaamay dhammaantiinba mar labaadna xildhibaanka waxaan soo dhawaala insha Allah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha SSUK Nuur waxaan isla jecelahay inaan laba kalmood bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وقوه رأي الله بمهدله مرلباتك وحنو مهدق يا رنتي مدشان شرفت عليه قروح البضن انت كسر دويسي انا لسر دويسي حلبان خضر وعاو هل كان انا لتشوبه شرف وين بيت هاي نجا يا انت كلا باينا انه كلا قيب قادنو وانا ادي ادنا كم مهدق يا ولي ما دالو غير لبان هذا قدومي ويوكي لكن أنا لندن بان هذا لندن بوكسود ويريا إن شاء الله بإذن الله كريم حلبان سودو تذكر بيوك شعلك سودو سيدا لو قعدر داري قدومي قعدر داري ويا أرنكويه تدق دقاقون باكينين ويكن لواركي وايو التانية كلمة كسي بدنان لهاي waxaan mar labaad u doonayaa inaan u mahadnaqo si gaar ah ugu mahadnaqo odayaasha halka fadhiya reer Shafiil oo shantii galabta yimi runtii maalin kasta oo aynu leenahayna laanta ugu soo horeysa halka timaada aad iyo aad baa u mahadsantiin qalbigeed ka ogsoonin insha Allah bismillaahi kariim waxaan inta ku darayaa waxa weeye hadda wadanka arintu way jahaysatay xagga iyo doorasho u soconaa waxaan u baahanay intiina halkan fadhiday inta maqaniba in qof waliba teerigareeyo inuu qof la yimaado cod baan maanta u baahanay maanta wax kale loo baahayo ma jirtay cod baa loo baahayo codna dhayal laguma helo waxaad moodaa in la ismahadiyay oo alla leeyahay markeeniyo war iska qaadanaynaa war wixii cod baa la doonayaa waxa la rabaa qof walba saad cod ku keeni lahayd ee cod ku soo xirin lahayd inaad ku dadaasho aad u mahadsantii israac de xafladan kulay way iska kooban tahay oo waxa la soo dhaweynayaa xildhibaan khadar guun waxaan kala soo dhaweynayaa abwaan jiheeye oo runtiisna abwaanada Somaliland kamid ah oo runtii aad u qiimo badan soo dhaweynayaa
abwaan Douglas baan isagana si gaar ah u soo dhaweynayaa waxaan baan idin leeyahay kolley hadal badan ma hadhinaya reer UK waa dad gobow nasabo habla yar rag boo cid walba way soo dhaweeyaan waan soo dhaweynaynaa saasaynu ku wadaynaa kuwa horena waan soo dhaweynay kuwana waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay xildhibaan soo dhaweynta iyo qiimaha badan ee lagu hayo iyo kalgacaalka de waa adun baa laga keensaday adun baanu kaa sugaynaa adigana halkaa inaad kasii wadda insha allah aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan aad u mahadsantahay abti waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyaasha iyo kasoo qaybgalayaasha munaasabadan quruxda badan ee caawa aynu ku soo dhaweynaa xildhibaan khadar madashan abwaanadana waan salaamayaa mudane xildhibaan halkan jaaliyadii reer Somaliland ayaa jooga jaaliyad fac weyn oo ilaa dagaalkii koowaad adduunka soo joogtay oo mar walba lafdhabar u ahayd wax laaliyo wixii isbedel Somaliland ka dhacay hadduu ahaa halgankii xorriyadda xornimada doonka hadduu ahaa la soo noqoshadii Somaliland dowladdiskii Somaliland dadka halkan fadhiya runtii iyo awooyaashood in badan oo ka mid yihiin waxay ahaayeen jaaliyadda ilaa waqtigaa soo taxnay halgan kastoo la galay iyo guul kastoo la dhaliyeyna UK waxa number 1 iyo lafdhabarba u ahaa hablaha quruxda badan ee aad arkayso nin hal abuur laba tahay abwaana waxaan rajaynayaa inaad suugaan uga tagi doonto hablaha Somaliland ee UK halganka qiimaha badan ka soo qayb qaatay aad iyo aad baad mahadsan tahay anoo intaa runtii aan ku koobaya kaliya wuxuu maan oran lahaa haddaynu nahay qurba joog reer Somaliland dalkeenni aanu jeclaan Somaliland maalin walba runtii waxay naga naxiya baa ka imanaya xarig baa ka imanaya boob dadkii Somaliland shacabkii hantidooda luboobiya ka imanaya dil baa ka imanaya ugu dambeeyay inankii habeen hore la dilay in abees ilaahay ha u naxariisto dawladaha waxa loo sameystaa waxa weeyaan inay muwaadinka nabadgelyadiisa naftiisa iyo hantidiisa u ilaaliyaan laakiin tii ilaalin had baynu ka ilaalinaynaa maanta oo runtii aad isku haysa markaad xaaladda aragtan waxaad xasuusanaysaa gabayaagii carbeed ee lahaa waraaci shaatin yuxma diiba canha fakayfa idaa racaatin laha diibun ninka ariga raaca arigiisa dacwadu ka ilaaliya laakiin ka waran buuri haddii kii ariga raacayo dacwo leeyahay runtii dawladdii nabadgelyada ilaalin lahayd baa ku tumanaysa muwaadiniintii waynu ka cunnahay xisbiga waddani Somaliland wuxuu u ballan qaadayaa dawlad ka farxisa oo la yidhaha dawladda horumarka aad baad mahadsantahay salaam calaykum ilaa iyo iskuulkiisii 26 June ilaa iyo miyaan wadaadee khadar waa nin markaa cabqariya mana ahayn local boy wuxuu ahaa nin 4 daamoodba laga yaqaano annagunbaa isog waqti badan baanu soo wada qaadanay nin la dhaysan karo ma aha markuu golaha baarlamaanka ku dhex ciyaarayo wax badan baan xasuustaa waxaan idhaahdaa qaar badan baa ku soo lagoaya xildhibaanku waa nin adag annagaa soo wada kacaanay markhaatigiisii baa caawa joogo xaya aad iyo aad baan anigoo ka mas-uula xisbweynaha waddani oo guddoomiyihiina dhinacayga taagan yahay runtii aan idinka mahad celinayaa sidaa qiimaha leh quruxda leh sharafta leh karaamada leh caawa aad noo soo sharafteen ilaahay ha idiin sharfo waxaa kaloo caawa inoo soo galo xafladdaynala goobjooga waa fanaaniinteennii daawada garanaysaa nimcadareen baa halkaa iga soo eegaysaa waxaa fadhida waa nimcadegan nimco asal dumbuluq ayaa iyaduna caawa inala joogta markaa dhammaantiin waan idiin mahad celinaya aniga farxad gaaray ii tahay guddoomiyahaygii oo dhinac taagan madaxtaa mikrofoonkii u dhiibi kari lahay excited baan ahay aad iyo aad baan idiin raali gelinayaa farxad weyn bay caawa ii tahay runtii ma soo koobi karo waa xasuustaan in badan sugayey haddii ilaahay idmana maalmo fara badan oo farxad leh aanu goobjoog ka wada ahaan doono nasiib buu yeeshay in abwaabkii wanaajeeyey ay caawa shoulder to shoulder yihiin aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa bajeeye haddii ilaahay idmo maalmaha u hadhay isagana si weyn baynu u qaabili doonaa runtii xaflad taloo kale ah haddii ilaahay awoodda lihi u ogolaado asalaamu calaykum waraxmatullah dhammaantood islaamaya waxaan anigu de wax kale maa soo kicine caawa xildhibaanka horta waan soo dhaweynaynaa marti kale way nala joogtaa waxaan fadhiyaa abwaan jiheeye abwaan maxamed Douglas baa fadhiya isaguna martida farboodin macal caadin xaqad buu fadhiyaa afartaa waan salaamayaa caawa laakiin waxaan iskugu nimid waa xildhibaanada khadar guun khadar oo ku soo dhaweynaynaa walaal aad baan kuu soo dhaweynaynaa soo dhawow de horena waa kuu soo dhaweynay iminkana kusii dhaweynaynaa oo kusii sabootiyeynaa insha allah
تكلم كنت سنة واحد تهاي سدو نكى جوهر يبيدي مشارح ونقص صعدا مركا ده ثالث تكلم ديال جروبو أنا لازم نكتب معها أن أفكنا أكشن لو قدروا وحد الله يحيي ده نسبة ما هي أريمو وين بو حسب السنة كا إن شاء الله في الأيام دور الشفلة دور الشدود عيسى أدبني سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان واندين ودا السلام يا شاليدا أن رير لندن هالكن السجود تمي سودوين تولالكن إبراهيم محمد شامع أو كم قعدر خضر جون وحن كلو سودوين يا وحنو ملايين ده تهي عاوة هبين كي إن أبوان ده إيحال أبو رضا وحويان ودغلاس أبوان دغلاس ولالكي أبوان شهية دمان واندين سودوين أن أنا كو هذايا هوين كحسب جوادني أدنى كو هذايا شالية دبيمجام وحن هالكن كتشوجنا أن شالية دي بيمجام وكمل ده يعني جيو أن قدوميه وح هالكاتشوجا أورنتي مرول بنوجو صهرية نوجونا مسافة دير وشالية دشافيلون مرول بالله هاي وح هاي ستاني دينكو علنكا وح كلو شوجا شالية دي بريستول reer London oo runtii yara gaabiya laakiin caawa soo dadaalay aad iyo aad baan idin salaamayna waana idin soo dhaweynayna gacmo furan qalbi furan iyo wanaag baan idin ku soo dhaweynayna muddo yar baad nala joogaysaa baan maqlay abwaan oo siyaasi oo xildhibaan waxa weeyaan wax walba waa isku darsateen marka waxaan idin ku sheegnaba garanayna dhamaantiin waan idin ku soo dhaweynayna magacyadiina iyo maaragtay hawlihiina dhammaan waxaan idin leenahay annaga oo isku duuban jaaliyadii reer UK oo loo kala harin soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada waxaan doonayaa anigoo runtii doonaya inaan halkan ka hadlo arrin yar waqtiguna uu gaaban yahay jecel lahayn inaan dhammaan inta badan idinka idin dhageysano una nimi oo idinku sharfayna inaan idinka aan idin dhageysano soo dhaweynta kadib haweenka xisbiga waxaan leeyahay iyadoo ay nala joogto maaragtay ucudo oo inala joogo qoraagu iyo dhowr qof oo kale oo runtii xisbiga ucud ka soo jeeda jaaliyad baan kugu soo dhaweeyay horta haweenka xisbiga waxaan leeyahay tacabkii faraha badnaa iyo halgankii dheeraa ee aynu ku soo jirnay gabagabuu yahay waxaynu doonaynaa inaynu halkii ka sii qaadno oo weliba u sii dhabar adeegno dadaal badanna galno dalkeennii wuxuu u baahan yahay isbedel waynu u ducaynaynaa shacbigeena iyo dalkeenna inaguna waxaynu leenahay inta badan waxa la qurba joogta dabka shidee ma shidnaa wanaagiinaanu jecelne idinkuna waxaan idinka baryaynaa ilaahay wanaag iyo isku duubni aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa assalaamu calaykum aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seynab Qurjuuf waa xisbiyaanad weyn umul khayr waxbaa sii jeedsan soo istaagalkan umul khayr waa xukuumadda xisbiga aad iyo aad haloo soo dhaweeyo shacabka loo tubo بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدبنا دي وذا سلام يا دمان وجهرين وحن هالكنا هذه أدب السلام يا أبونا ذا قالقة وجهريو حلبان كاين سود وين إنه خضر يو دغلاس يو جهية وجهية وحي نوت هاي شرف بين نوت هاي نتباع ويسافر إنه وإن هالكنا نكسود دوينه دمان وحن وذا سلام يا كسق الجلياشة gaarahaan waxaan salaamayaa xisbigayga wadani inta joogta rag iyo dumarba waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamaya martidana aad baan soo dhaweynaya dhammaantood ucid iyo wadanina lambarko waan wada salaamay aad iyo aad waxaan leeyahay halkan ka soo dhow walaalo ku soo dhow London waqtiga oo yar sidii la sheegay khadarow waan ku soo dhaweynayaa walaalkay Axmedna aad iyo aad baan isagana soo dhaweynayaa aad baan salaamayaa waxa weeyaan ma sha Allah inamadayna sharafta badan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa ee soo qaban qaabiyo ugu horeeyo walaalkay Abdi Samed aad iyo aad baad mahadsantii dhamaantiin assalaamu calaykum waayahay aad iyo aad bay umul khayr mahadsan tahay ku horeeyo abwaankeenii weynaa Ismaaciil Jiheeye Ismaaciil soo dhow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هوري هورانتيد markii aan mikrofoonka qabsaday shanqadhii baxaysay baa istaagtay hortii waa ku mahadsantiin ninkan aynu soo dhaweynayna khadar idinku dee qaar waxay ku soo dhaweynayaan magaca xildhibaanka qaar magaca xusbiga wadani bay ku soo dhaweynayaan laakiin xusbiga wadani intuu jiraya iyo inta xildhibaannimadu jiraysaaba waa in yaroo koobane annagu magac ka weyn oo ka suugaantay abwaannimadaan ku soo dhaweynayna suugaantu ma dhimato qodobka kale ee halkan aan caawa uga faa'iideysanaya waxa weeyaan kelmadaan la doonayay inaan qoladaa wadani dilikooga kaga xareeyo waxaan odhan lahaa reer wadaniyow hadalkiyo kooban saddex kelmadood baan idinku koobayaa waxa weeyaan mucaaridnimaa bannaan muxaafidnimaa agtaal muwaadinimaa ka weyn kelmaddaa malaa waa liqdeen baan u malaynayaa mucaaridnimaa bannaan muxaafidnimaa agtaal muwaadinimaa ka weyn wax kasta oo mucaaridka iyo muxaafidka dhex yimaada aynu magaca ka sarreeya muwaadinimada ilaalino intaasaan odhan lahaa fariinta aan halkan marinayaa laba kelmadood baan odhanayaa dee kolley suugaantii aan kugu taageerayo waxaan odhan lahaa nin kastoo la doortoo derajiya xil qaadow nin kastoo la doortoo dusha maamul saarow nin kastoo la doortoo masab loogu deeqow dalka fiiri aashaa dacallada ka jeedaal kolba dacal ka faalle dadnimona ku saameel gobonnimo daaqeed daacadnimo ku heensee bulshakeeda taag daran ka yaboohi darajaad danyaraha miskiinka iyo dulmanaha isweydii isagaa ku doortee waxa loogu dawgalay dulucdeeda weedhaa waxaan uga dan leeyahay rajadii fihaysiyaha ku digan agoomaha ragga kiisa diidiya ha dulmarin nin goolmoon marka aad dareentana ha u dirin qof liitiya waa intuu u darayee nin dibre ha weydiin dulucdeeda weedhaa waxaan uga dan leeyahay yay aqoontu kaa didin damna yaanay kaa odhan ayadaha daliilkiiyo yaan diintu kaa lumin dawo male xumaantu iyo xaqa yaan lagaa duwin malaa'igta duushaa dembi yaanay kaa qorin aakhiraa dambaysee yaan iilku kuu dumin rabbi daa'in weeye yuu naarta kuu dirin dabka iyo cadaabtuna ilbahagayay duban mar labaad duruustaa waxaan kugu darayaa dunuubaha dhibkooda iyo ka baqdaynta aakhiro dadku waari maayee dembi culus ka dheerow dallad weeye noloshiyo haddanaysan keligaa dermadaad ku jiiftiyo degmo yaan laguu tirin iimaanku daankiiyo yuu dollar kaa gelin garashada damiirka iyo damcaddaadu yay dhiman darajada xilqaamka iyo dushu yaanay kaa madhan dalawada xusuustana sharaf baa ka darartee bulsha weyntan daayacan noqon ruuxu daacada war hadduu dux leeyahay waxaan taa ku sii daray yaan kaynta duur kale dogob shidan la taabsiin yaan geela daaq tegay lagu odhan dugaag raac dulinkiiyo qaniinkana lagu daawanayla dulucdeeda weedhaa waxaan uga dan leeyahay ayax iyo sidii diir dhulka yaan la daaligin dabagaalle iyo jiir dadka looga sheekayn yaan diyaaradeennana sida diinka loo wadin kuwa duba dhallaanka iyo dad qalyaan wax loo diran oon daamur loo karin shicibka iyo dadweynaha afartaa intaan degay nuxur ma ugu daadegay dadku wayga filayee ma ka qaaday daahii dabcin maayo maansada jeeroon dul saaree afartaa ka sii daran doorri ma u dhigay dubla nin kastoo la doortoo darajiya xil qaadow dadnimaa xal keentee noqo wiilu daacada ciidamada difaacee dalka hooye awgii dibadaha u hoydee duurjoogta u heshaday dadnimaa xal keentee noqo wiilu daacada dib jirka iyo dhallaanka iyo kuwa dooxa jiifee diilaliyada habeenkiiyo dhaxandayra dhaafkiiyo dabaylaha xagaag iyo kolbadaadku sigayee duufaanku dhagatiray dadnimaa xal keentee noqo wiilu daacada umulaha difaadka iyo dihashada la fooshee digta dhexe habeenkii dusha dhiila saaree dalaqdoolka oonkiyo surmi loogu dawgalay
dulucdeeda weedhaa waxaan uga dan leeyahay ha lagu duceeye noqo wiilka daacada shilimada dilaalkiyo baska iyo dukaankiyo farmasiiga dawadiyo nalka daara laydhkiyo digsiilaha hudheelkiyo dabadhuubka ciirtiyo dawaarkiyo kaboolu degdeg ay u bixiyaan dadnima halkeentee noqo wiilka daacada shilimadan dallaydiyo baska iyo dukaankiyo farmasiiga dawadiyo nalka daara laydhkiyo digsiilaha hudheelkiyo dabadhuubka ciirtiyo dawaarkiyo kaboolu degdeg ay u bixiyaan dadnima halkeentee noqo wiilka daacada cashuuraha dalkeenna daaraha la jeexiyo dekadiyo madaarkiyo isgaadhsiinta dibadda laga guray dariiqyada dadnima halkeentee noqo wiilu daacada noqo wiilka daahira dulucdeeda weedhaa waxaan uga dan leeyahay dambiyuu ku raacina u shaqee dadweynaha ama ka jooga noqo ama ka soo socdo noqo afartaa intaan degay nuxur moogu daadegay dadku way iga filayeen ma ka qaaday daahi dabcin maayo maansada jeeroon dul saaree afar iga dardaarana iyagana ku soo durug ereyada haldoor kale waxba yaan ku daalina hadal iga dignin iyo tala diiran igaho diblomaatsigayga waxaad maanta doontaa dadkan oo xaqsoor iyo hela xaakin daacada diblomaatsigayga waxaad maanta doontaa laaluushkan daafuray wixii lagu daweyn lahaa diblomaatsigayga waxaad maanta doontaa adigoon dagaal ridin maskaxdaad ku degileed xadka badiba daayacan diblomaatsigayga waxaad maanta doontaa macdan iyo waxaad dahab ku daboolan buuraha dadka aynu gaadhnay maskaxda iyo dareenkaad kaga dooxi laydeen diblomaatsigayga waxaad maanta doontaa dabargoynta adhig iyo bacda laysay duunyada sidii looga dayn lahaa dekadiyo madaarada diblomaatsigaygow waxba yaanan daaline waxaan deelka kaga baxay ama hadal ku soo daday dabka iga baxayiyo waxaan qaba dareenoo deegaanadeennii waxa doorshay eego taladaydan daabacan waa dardaaran sharaf loo dawo aan u bixiyo ka digaayo xumahe waxaan ula dan leeyahay qof kastoo damiirlow diiwaanka ii geli oo ha iga sii dayn doqonkana umaan cunin waayo kama degaysaba عباركا دغاي كو سورتين وا كوما هادسنتين waxaan dileeyay tankis merci shukran gracio galatom gedegay amasaginano namaste shukriya isbasiba hifi tastumiga ahsanti sana muraksheeshiya shukran jazakallahu khairan aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waayahay abwaanku aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan sugnaaba waa abwaankeenni weynaa abwaan Douglas oo caawa inugula sogan madasha ku soo dhawow abwaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاد بان ugu faraxsanahay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha leh in caawa ka soo qayb galo waxay xasuusisaa waxyaabo in badan ina ka maqnaa dadkeena iyo xitaa hablihii quruxda badnaaye aan arki jiray ayaa caawa halkan ku badan iyo raggii dhaadheeraa dadkii dee aan wejiga wanaagsanaa maasha allah soo dhoweynta xildhibaanka ayaa keentay dadkaasoo dhan u soo inqadeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo abwaan xildhibaan intaasoo qura maaha waa nin adag wey waa nin maalmaha adag waa ninkii maalmaha adag had iyo jeeraale dee raggu wuxuu ku kala baxaa maalinta adag ragga siba sagaalka iyo magtiya suurad guudnibe ee misle kama masuubaan aqoon sofa iyo liida suryo adag saraayaha markuu saajax ka hadlayo sokorin inuu bartay iyo xaraf yaqaan saami kala geeya nin siyaasadeer iyo badow kala soo arooriyo oday hore odayaashii hore gebi jiraba aniga ma hore waxa weeye nin siyaasad dheer weeye xildhibaankeennu waxaanu leenahay ku soo dhawow UK aniga laftaydu UK muddo dheer baan imanka ka maqnaado dhulkii ku maqnaa caawa bishateedii baan imi waddanka muddo 4 sannadood dalka waan ka maqnaa markii ugu horreysay 40 sannadood iyo inka badan daada sheegi maayey aan intaa joogaabay ahayd dhul la baloodhaystay iyo dadkii laftoodii oo la baloodhaystay ayaan tegey dadku way baloodhaysnaayeen anigu inta badan waxaan joogay magaalada Burco sidaan maalin walba baloodh u dubinaynay
markii u dambeysay waan wada duminay baloodhadii magaaladii wanaagsan baan ka imi hargeysa weli baloodhadii waxbaa kaasi jira waxba la qarin maayeen laakiin magaalada burco iyo wixii bari ka xiga markaa dadku aad bay isugu soo dhawaad waxaan abwaanka iyo abwaanka sanadka dee sanad bandhin baa leh anigu waxaan ahay odayaashii daalay abwaankeenna sanadka waa jiheeye sanad bandhin baa leh ta kale dhibaato kale lagu yeesho anugu siyaasadda ku milma ninkuna hadduu siyaasadda ku milmo dadka uma dhexaan karo siyaasaddu waxa weeye markii madaxweynaanta baa keenaysee annagu waxaanu ahaa dhallinyaradii mucaaridnimada cali faarax dheere iyabaa dee aanu garanaye aanu wadajaan qaadi jiray dhallinyaradii mucaaridnimada lagu caqariyey dabeedna muxaafidba ma noqon karayo muxaafidba waa noqon kari waay muxaafidba waayo mar walba waxaanu doonaynaa inaan wax saxno mar walba nin doonaya inuu wax saxo dee ma noqonayo muxaafid ma noqonayo markaa waxa weeye gabaygii intiina kaga fillay dee abwaankaa tiriyadu maanta waktiguna wuu yaryahay xildhibaanka ayaan doonayaa ninkaa dheerna waxba looma sheega baa layidhi ninkaa weynna wax looma sheego ninkaa dheerna waxba looma tilmaamo way ka siyaasisayaho dee daada anaa ka weyn baan u maranayaa galkaa iska caddaadee waxa weeye berigii hore guursida nin baa noogu jiri jiray abwaanada maxamuud maxamed dheeg ninka la yidhahdo dheeg ayaa noogu jiray waaba xanuunsanayaa la yidhi ilaahay caafimaadkaa u siyaadiyo maanta rag badan baa ku jira abwaanada oo uu qadar ka mid yahay ayaa noogu jira oo laab saalax ka mid yahay oo uu ka mid yahay caana boodhan in la yidhahdo marmar wax isku tuuri jiray noocayaas nooca soo gashay fanaaniintii baa soo galaan male inantii aan heesaa u dhiibi jiray baa soo gashay inkastoo maalmahan heesaan u dhiiba la yidhahdo far baa kugu godan nimcooy far baa kugu godan baa la yidhahdaado hashumaankaygii ka dawaruma masaar bay lirtay soo dhawow nimco soo dhawow soo dhawow soo dhawow marka waxa weeye nimcana waa tanina soo gashay nimco heestii far baa kugu godas diyaar ma tahay aad baan markaa ugu faraxsanahay caawa abwaanadii golaha way ku soo bateen rag badan baa ku jira wax tiriya xildhibaanka waxaan ku odhan lahaa cadaaladii wayna ka jiiftaa maxkamaddii wayna ka jiiftaa guurtidana wayna ka jiiftaa baarlamaankiina wayna ka annagu muuse biixu waxba saari mayno waxaanu saaraynaa dhammaan intii xilu qaaday ummadda waxayna ka xun waxaanu saaraynaa intii xilu qaaday ummaddoo dhan oo xildhibaanadu ay ka mid yihiin waxaanu leenahay badheedha oo ninka galka seefta ugala baxa oo naga rida haddii aa codkiinna midaysaan waa ridi kartaane naga kaxeeya muuse biixi allihiinna haddaad taqaanin ya hadalka anigu ismaag taago dalkuna maanta doorashaya baa laga hadlayaa ilaahay ayna ku simo ayaana naleehay ilaahay ayna ku simo haynoo ka dhigo sidaynu doonayno laakiin xildhibaanada waxaan uga baahannahay inay shaqeeyaan baargabaga miyaan raacaya hadduu hadalku kaleeyo nolosha kaalmeeyo kurubooda gaban kii aan xalay kaafkaygaashe cabdilaahi kuwa kaanaa wadan kooxna taageerin kuwa jooga kuwa iyagu dhalan keliga gaadhsiiya kuusowga kale biyo dega
iyo kuuba iyo hayti kulka buuradii reer indiya amase kuukaayo innakoo kitaabka iyo sharciga kaga kalsoonaanay misna kuba kacaan oo iyagu kibir ma yeelaane inkastuu ka macay uu riddi kari aqoon waaye kilitoomba kiiskiisi galikoodhna lagu saar war madaxweynihii maraykanka kilitoo loodhan jiray baa inan yaroo munakil waski loodhan jiray maxkamad saartay hadda waa ninkii maraykan haystay kilitoomba kiiskiisi qiray koodhna lagu saariyey odayaashii lala kaashaday iyo kuda markay gaadhay konkoolistii lawastan iyo keedii socon waaye isaguo xumaa waa kanaa ee kii xidhaan jiray haddaanse kaamil ugu fiirsaday oo keliga faalleeye kala durugsan keen iyo malahay koonkan aadami ee kala kaan inaan nahay waxaa kaa u maragiisa innakana kuwii kubandilay bay sharaf u keentaa kursigama mahabsadan ibaanay ku kaafirin kafadda iyo miisaankii baa koola joogsaday kaataadhabluhu baarqabkii kuriska naafeeyey kooraaba loo xidhay raggii kooska caanbaxay marka bado karuurkiis ninkii keena geenabeeye korjoogihii abaal uma hayaan kadilma dhaafta iyo kashifan ee agoomuhu iyadoo kiishna lagu caawin nimankii abaaraha ka dilay kiisa jecel baaqday ee kaday xilkoodii haddeer haw kabdhowdeenay kaleeda hawga yaaheen intay dib u kadleeyaane kormay ha iska dhoodhootiyeen kurushleeyayaa headmarka oo dhan haw soo xidhay galadhabyadu kurihii fircoon iyo sidii kaabadihii liilan kabadhuudhe kadaloobsaday oo koona ula leexday kadoobane kuraan meeriyey oo cadho ku keeraystay kalmadhaamiyaa uun kaskii kala kaxaynaya wallaahi way kala kaxaynayaan kalmadhaamiyaa uun kaskii kala kaxaynaya koofiyad bacale iyo koloyadii kuurka ugu dhuuntay war waa laba keliyood iyo ilay kaanuu maanuhu iyo keligii tasha buunbaa watiyo kaashku iibsaday aqalkan kabaalka iyo udbaha dowladnimadu waa aqal soomaali halka alool baa kaga jiro halka caws baa kaga jiro aqalkan kabaalka iyo udbaha dhiga ku kooreeyey ee aan aloolka iyo kabdaha meel isugu keenay kabriid ha iga sudo kaabaluu keenay cadowgay kulaanbay guduudane kobcay iyo korokorta isfuushay kaba tole wanaaggaan karkareha iska soo kudub kabtaan yeelayo yaa abuurkawda ku hayaa halkii kadeeduhu dhigay ayuu kuududaa weli hayaankaba kaxeeyiilla waa kobaha geyla war miyaynaa waa in cidina kaxaysa hayaankaba kaxeeyiilla waa kobaha geylaaye kartinimu dhashay oo duulkan kadan karinka dhaafsiiya kadabaaga kii loo samray iyo wiil labsigu keenay ilaa uu ka kaco kaalinqaad kaafiye geesi falyaqaankii dheriba u korsane laba kuraa u dhaafto asalaamu calaykum waraxmatullahi salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu cabdisamed cali ducaale seed aad buu mahadsan yahay abti buu yidhi laakiinse ilaahay naxariistii jannaha ha ka waraabshee cali ducaale seed baa wakhtiyada ka mida isagiiyo abtigay xasan faragube oo xasan xirsi muuse aadana ayaa wuxuu igu yidhaahdeen annagu abti kuuma nihine adeer baanu kuunnay sababtoo ah waxaannu garanaynaa aabbaha cumar ibraahin oonu saaxiib ahayn markaa cabdisamedow walaalaynu innagu abtigayna waa kana waa abwaanjiheeye weeye oo halkan fadhiya intaasi waa kaftan waxaan si kal iyo laababa u soo dhowaynayaa xildhibaankeenna xildhibaan ibraahim maxamed jaamac boodhle oo loo garan og yahay khadar guun ama abwaan khadar guun waa nin fara badan waxa weeyaan waa nin ilaahay dhammaystiray soo dhowow xildhibaan waxaan iyagana halkan ka salaamayaa soona dhowaynayaa labada abwaane qiimaha badan abtigay abwaan douglas iyo inadeerkay abtigay abwaan jiheeye iyo inadeerkay abwaan douglas xildhibaan wakhtigoo kugu yar awgeed aad baannu uga xunnahay in aad dee muddo 2 wiigoo qudha nala joogayso insha allah soo noqodkaaga ayay ka ballaadhan waxaa ballanteennuna ay tahay in waxa la yaala wixii aflagaada ah ee dadka kala fogaynaya ee kala dilaya aynu ka waantowno xildhibaankaa ka mid ahaa maray lugtuu yara baxday beri dhexdaasa oo isaga laftiisa nafta loo keenay habeen dhawaytoonu wada joognayba waxa uu yidhi aan idhi war facebooka hore xildhibaan waad beddeshay
markaasuu yidhi facebookii hore waa kii qolo weliba qoladeenna ahi ay masquul ka dhigatay oo waxa weeye waxay doonaanba ay shubeen markaas soo dhowow baan leeyahay aad baa wada mahadsantihiin aadna waa idiin salaamaya assalaamu calaykum aad iyo aad buu mahadsan yahay suldaanku waxaan marka hore salaamayaa dhammaan marti sharafta meesha isugu timi aniga oo aan runtii magac u sheegi karaynin laakiin ay caawa u muuqato inay tahay habeen aan loo kala hadhin marka aad iyo aad baan marti sharaftoo dhan u soo dhawaynayaa waxaanan jecelahay anigoon hadalka sii badin inaan walaalkay xildhibaan khadar guun ku soo dhoweeyo magaalada London iyo ehelkiisii iyo dadkiisii iyo Soomaalida wax allaale intii ku jeclayd oo caawa aan cidi ka maqnaanin aad iyo aad baan ku soo dhawaynaynaa waxaanan jecelahay inaa xildhibaanka si niyada ila soo dhawaysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhaweeya saaxibkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أردا مدشي نبلارن بورن شرفت له وحنقول سلام يا سلامتنا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرحت وين بيتي برشة دن إنجليزكا كسر رقي مجالك كستا شفيل بريستول برمنغهام كاردف ديميان تريكرايا لما هرين taas waxay muujinaysaa nin dadkiisu qiimo hayaan iyo sharaf anigana way igu xijo marka intaas oo qofday ay ku imaadaan de xalku waxa jiray gabay u tiri jiray ninkii loo oran jiray cali cilmi afyar oo barihii dardaarankii loo oran jiray toosin luquntaada minis toosin luquntaadu bay ka taagan tahay waxa kale iyagana aan aad iyo aad mar labaad aan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhawaaday xaruntii qurbaha laga hagayay siyaasadda Soomaaliland ilaa waqtigii mustacmarka ilaa yomana hada jaaliyada joogta siyaasi aan London qoobka soo gelin ma soo bixin Cabdiraxmaan ayaa ka qalin jabiyay oo wax ku bartay oo madaxweynihii hore noqday Siinaaya wax ku bartay cigaal baa wax ku bartay bal hadda eega Ingiriisku waa meel cajaa'ib waa magnet anigana farxad bay tahay maadaama siyaasiyiinta cusub aan ahay ballan Ingiriiska dib loo laga barakista xagga siyaasadda aan qoobka soo geliyo aad baan idinku mahadnaqay wallahi haddaan islaam magacay bilow dadka badbaan ka tagay hadalkana waa gogoolaya farxo iga noqonaya laakiin waxaan ku daynayaa dhammaan waxaan idin salaamayaa ragiina gudoomiyaha madax ni aqooyahana waxaan u salaamayaa Maxamuud Yaasiin wasiirkeennii fanaaniinta iyaga ma quuri karo garbahaygay taagayeen oo de baxdii fankaan laahay ninkaygani waxaan iska haynin bax badan shakhso kayaan ku yiraahdaa shakhso qoys ciido anna masaajid masallahan deema kabriyahan doonayaan jimcaha ka jeediyay laakiin de si aan siyaasadda raacin maaye kaygu waa cala dul ma qaala Allah ta'ala ma qaala rasuulun ku yaqaanaya oo qasam sir oo maadu fan kale ku jira siyaasi nabad san ku dhumay ilaah badiday kitaabka soo meel diidaysa marka taasina way iska hadhay hablaha sharafta leh fanaaniinteen macalleen macdareen leh waa wada nimca meesha maray hablo hodhan iyaga deeday hablaha dana maananahay leeyahay milan dumarjinay ku dilay Allah waan leh caawna heestoodii horta waan wada heestii hablaha waan wada ay markaa la saari doona wallahi ana tirin kareem abwaaniinta labada abwaan awliyadu way kala saaciidaysataa awliyadu ducada way subanaysaa بريجو هروح الورجي الشيخ يوسف الكونين يبقى أولياء الله سلامة يا شيخ ماذا إما كرجع قاعد بالوضع نبى دي هرتاني جاي هركعة أنا بدي سياسة دي بور كانوا يرها يا وإذا سان كيدونه لكن وحلا يدقلس هاوجا بحين سياسة هذا ودي سياسي نوها أرمي على حين إمساها هذا تربيبها وجا حمينه ما أنت سياسة دي وحكب وحسياسيين نقضي كباري haddaanan waranka ku day oo weedha ku day oo wacdiga ku day aanan ku wadin dalka waxba kama qaban karayno anigu xeedajin baan xeedajinteeda qaamada baan haystay badaxna tiraan waxaad ugu qaban kari weydeen dalka dalku markii xeerka awoodiisa la eego guurtiday anaga hayna waa waxa inoo qoran ee dastuurka ah ee rectified ka la isla qaatay
haddii caawa madaxweynaha inta dhacday aanu eegno madaxweynaha horena waan uga sheegay maanta baarlamaanku waxay ahayd inuu waajibkii dastuuriga ahaa guto oo aan madaxweynaha ku sameynaa xilka xayoobin maaha ku xumeen muuse maaha muuse la nacebi maaha ardaagiisa la nacebi laakiin inta dhacday ee dhacdaba dhacday ka dambaysay ee dille ee xadhig leh ee ku tacaddi hantidii guud leh ilaa wajacade ya ilaa goojacade maanta muuse wuxuu munaasibin bilxaqiiqiyan haddii baarlamaan daacadi jiro oo hor ilaahay u dhiman in xilka laga qaado oo guurtooda anagu markaan xilka kaga qaadno absolute majority in iyaguna ay kaga qaadaan 2/3 saddex meeloodoo labo dalkuna uu saa ku dawo madaxweyne ku-xigeenkuna 2 sano oo hayo inta doorasho laga qabanayo ama taa u muddaysan ku dhammaysto laakiin waa kaa awoodayda laakiin sideen ku dhammayn karayna abwaandhagdas waad maqlayseen awal waxaad arkayseen buuri dhul la balloolaystee dadkii oo la balloolaystay baa jira kaadana baarlamaanku nuu balloolaysay taasaan idiin raacinaya yaa habar baanu u kala soconnaa xusbi baanu kala soconnaa waadna aragteen xaqiiqdaa fiican anigu hadalka halkiisaan ugu tagay taas waa taa waxaan idiin sheegayaa horta dee 1,000 qofna waad igu timaadeen 1,000 waxna madaxayga ku soo dhacaya koob hadalkana waad tiraaheen deyntaas isma qaado intii aad tiraaheen in leeg inaan leegiisiyo weeye ilaan toonbaad ku hadashay 10 hadalkoodii inaan mariyo weeye horta waddankii waa keen waddan wanaagsan oo barakaysan oo qurux badan oo shacbi wanaagsan leh baan keen laakiin sharaftu ka dhimatay maamulkiisii shacbiga waa shacbi damiir leh dulqaad leh wallaahi inaanay axdal ahayn war ma dilka dhacayay maanta eegan lahayn hadday shacbigu yihiin shacbi boodaya sida ka adduunyada war ma hantida la boobaya qaadan lahaayeen war ma waxa gooja cadday ka dhacaydha qaadan lahaayeen war ma ciidankeenna baaba'ay qaadan lahaayeen war ma waxay qaadan lahaayeen cadaaladda maanta sidaa u socotay qaadan lahaayeen war ma waxay qaadan lahaayeen inankeenii aynu dhallay aabbiyo hooyaba aynu ahayn oo inagu doobiyay qaadan lahaayeen waa shacbi nabadda jecel nin walba wuxuu kornaya nabadda ilaali taasuun baanu la ilaalinaa taasuun baanu xeerkana annaguna xeerkii u caburinaa markaa laakiinse maanta qaadi kari mayso waxaa leeyihi awrku ya awrku rag aanu qaadi karin uu qaadaa laakiin xadhiqa loocan ma qaado maanta waxay maraysaa somaliland no more waad aragteen inta goob ee maanta ilaahay naga badbaadiyey aynu afweynta oo dhici gaarno maanta cadaalad darro way jirtaa xuquuqdii dadkoo lagu tacadiyey baa jirta waxaa jirta hantidii qaranka meelima hadhin anugu waxaan idhahdaa malaa dhakadaada intiina bidaaraha launbaa bannaano weli aan la balloodhayn dee dhulkii meelaan la bixin male dhalintii kacaanka halku caawil cadami haysan jiray carruurta ku ciyaar leeda xaafadda jigjigeen iyo koodbuura ku ciyaari lahayn waa la bixiyey iskuulkii tibacadde halkuu afweyna dhisay ee ahaan jirtay xaruntii xusbiga waa la bixiyey idiin sheegi maayo khayriyada liinkii biliiska ee askartu ka soo kicilay ee waajibkooda gudalahayn saldhigga dhexeeye magaalada amniga la bixiyey calalqalb waxaan idhi war haba la bixiye ninka taajirkii marka uu dhulka intaa leeg la bixiyo ee dantii guuda ma waxaa la garan waayey waar intaad idna bixisaan inta bannaan dhaha lacagtii laga qaaday ha la kiciyo 3 dabaqadood sidii african village oo dadkii 3 qol iyo 2 qodol ciidankii ha looga dhigo adduunyadu waxay noqotay vertical cities kor baa loo dhisaa si ay dadka u qaado injineeradii samaynland baa jirta waxay ku dhisi kari lahayn 2 bilood xaafadda dhan ee lagula african village shirkii africa OU-da markii la dhisayey bil buu ku dhisay hoggaankii ciidankaasi dhibtoo qandaraaska lisay waa la dhisi karaa laakiin dee taajirle anubaa isku ballaadhinaya badhna falaawar ka beeranaya oonu taasaynu qaadi karayna warma waxaynu qaadi karaynaa xadhig joogtaa warma waxaynu qaadi karaynaa cabure marka waxa weeye idinku maanta isbeddelka kuwii keeni laabaa tihiin kuwii waddankan la raadin lahaa inay ku soo dabaalaan siduu sharcigu ahaa waxaan idleeyahay qurba joogta ay saamaynta hadday dihiin idinka laftarkiina xildhibaana mar dhaqaalaa laydinku tuumayaa mar garashaa laydinku tuumayaa mar kudhacbaa laydinku tuumayaa war dadkii baahi baa haysa
والأمة بقول كيف سديته واحد كله شهركو أي كله شهركو وصدق كل أفركم بالو عنا زمان لنا ولا less than 10 cents أي قفل المواطن عنتيني ونكي عيدك هاوح قاطع بهالمليون يبغولكم هالمليون يبغولكم هو $100 يتشجع بنيكم عسكري أنت هله محوكوا تعتقوا محوك قبل عاوة أرمها عيدك أنو لحقلي ماي وحنا لحقلين تشبك دعوان ولا رجلا لكن عيدكم وباب أيترحوا لاس عانود لفت الكيدنا وقبل عم يدقال قوات الحب إمي سيبر يوتمين ورديل كان أنا لك ضبط إمي سيبر يوتمين له ورعيدك أنا قدر قاضي حسبية معارض إمي سيلها ورعيدك كان سوق قاضي والمدحوينه هو حد يدي مركي حسبية استقصدين والتجارتي مال جلسة صوص صارت حسبية يصير كل مية أيو يروى وطني والمدحبشيل بوطني والملك إسماعيل والرميتال إستا وطنية والمعبد الكريم محمد يدو مركي مدحتو إذا سيران يقلين اسمه يقول ريب وقال لا تكون رينوفيشن كسبية وطنية ووضو وطني بويل علماء دي بو كدبكي وانك علماء ديلي إيه عامة ديلي إيه تهاجر ديلي إيه نكيني وميش تشور حتى إنه ما أنت إسناحنا إنه قلنا لا تقالما هو كارس عنا كلا وانا تكينتي ما أنت بيشا ولا لهنا إنه قمي ذا برق برعي إني سومال لك كنتو ويكجا حبوني بيها كرر ويصوت الله بسدين مرة قسمي سومال وين دورش الله قبطها وانت هلا يلا بالك أول بدي واحد نتريج له هذا عالم سما ما كاسين نرجع نسير بدي يكون يسقال كي لحدي قضبين يكون يشيني مركي بعرض كان لحنا يا دي واحد هذا عالم كنا سوق على سما هاي أنا وأبوكو فرحسن وبارك يا باشا برك برعام ولا هذا ما حبرت على بالنا كلام فرشة ما أنت هنا كلام فرتوي نقول كلام كتير وحنا متزين إننا بيش عالم كوب بحرين وانا نقول بارينا تيبا القاضي تيبا نلوك كني تيبا نشرعيين سيدي عيهيد بان وشرعيين ونقرحنا ما أنت حيرك كان نسكو قريب 14 نايت وانا دور شذا حتى وحنا كسي تجارني إن أنا فيتشر كسومالي لا حير قبيح هو دل إلى هذا كل بدي على كلا عنو يرى وأنا تعذركتين وحنا نكرر شيء إن ما أنت قرتنا سيدي عنو أنصحنا إني وأنصحنا قرتي هذا أنصح السنة حير كاسوح وتجيب الحبينة مدحوينه ندي ما أنت ما هو رستايكم مع المالنا وحلو رستايكم باتشته وحنا نقول دعينا يسجل التركي سنين الصداع حير كا وكسيدة أيو قرتي ذو كسيدة يسو طور شذا الكوكب هذا بحال مهمة حسبك وطني دارو كمدبان فريني واسع فرين تيدو وحوي وأفر تاسو وحوي كو إن حسبك العلوش أسي ديسان إن ندور شقلين أو صدا الله يشكر راعي هرت علوش أسي داير وحينو كدونينا عدبينو كدونينا موسى العدب كويمين ريال العدب كويمين عيال العدب كويمين إنك لما أنت مسؤولية بين صارنا شعب كبدك يسيبنا قروح بالي إنك ربا داوي عيد الدلاعي ودك كل عيد رقالة سياسية بالربعين إنه قبلنا حول بضب بينوت الله حوش هذا إنه بضب بيصير كو حسبي يلامي يصير للرسو إن حسبي قال لأبابله حسبي قال سلو النقضه حسبي ومضى حنانية وحتى كبلابية موسى يدي جامديس كبلابية deegaamadaasi waa dadka la kala baloodhiyay laakiin waa inaynu maanta ku guulaysanaa inaynu awdal ka bilowno inaynu ka bilowno maxaan ku yidhaahdaaye deegaamada maanta madaxweyneynu ka soo jeedo aynu muujinaa kalsooni aynu ku qaadan karayno codkoodii oo inagu maamuusaan haddii aynu dhahno waa markaygii quradda ma shaqaynayso waan idiin sheegaya waxaana teenii inaga rabaa halabuurkeennii baad laynaga rabaa waxaynu haynaa badeecadaha markaad iibiso iibinaysa badeecadna waa la is iibiyaa oo iyada is iibisaa waxaysiisi aadhisuma baahna midna waa la muuseeyaa ilaa qaadka xitaa cawslaha waa la muuseeyaa annagu nin akhlaaq leh oo diin leh oo aqoon leh oo dadnimo loo dareen leh oo dooc leh baanu wadnaa cabdiraxmaan ciraa yacni kamalihi waan ammaanaya حتى أنا ببرجي دويدي أنا حوجا إذا عن كمية عن كمية كل قيمته وتعيش بالمينية
سالفت الكيك بدل كاغا نسبه هذه السو دوي اروس بان تغي مaalmood halka waa ka fadhiyo walaalkay Cabdi Xuseen Xadka waxa iga soo baxay ilaa 20 nin oo sacad nusaac waxbayna kama isma soo isku dar illa dugsi hoose la igala soo baxay way ila barbaare ilma ay qabato wala waa hadii kari waayay waxay igu leeyahay khadro dalka dajiya يعني سوى البويلة درطارمين يقول ما أنت كجودية ودك واحد كسرنا إلى ما يحضر سيدين دفاعية كل مية نكون تشري أو أنا يقول وضني أنا حضر اللي تشوفي وجاي حضر ما أنت قرور كدلك وقوام والله واحد يقول خضر ودلك هلا كمشون سيد الغرب حبضان يرجع دردارنا دي يقول السعودية عروسك عبد السمد وجاي مسخوشان يصير حتى عرونا في جريسكو هذا سيقول هذا جايز محط وضعك السمين سا أنا يجي وين يا أبي محل بابا كاحي واحد سمين قرن ماي كادي ديريدو بحب أقول هذا كان فينيش كان يستتولي يعني هو اللي يسيد ده يعني ده تقصده كان إلا سي والله دي بكسر مركا وحليه موسى إلا سي والله كعي الهين ما ينعدكوا هليه عدك أنا كنت نقا عدك نقالو بهي شقو بهي شكاسي بهي هالقلب بهي إذ منقار أو قفل يبغى نقاقه أو يراه أنا قبل يبهي أنا بهالكاتير كان يسكسبحي وطني جمع بهي بليس كان سبب ذي العنين تجري ذي اللي تشوف لكن واحد شيء تبليغ سياسي أنا هاي وهذا في عن هدي نيجي كل 100 دولار وحي تور بس إنه غير نيجي حمر تقل هاي وهذا بردول يا عبد الرحمن تور أيوة لها تور با صنوعي نيجي حمر تقل هاي وقال عبدي واروح اقول له نيجي كل 100 وسعودي خضر بس انه وحبا ما حد يا والله halkaasaan idin la fadhiyaa in sha Allah hada buugiisana dadku waa daalay meel badan bay ka yimaadeen jeclaan lahayn dadka hadalka daalamay qaybteedii muusaan suugaanta walidi ka daay caawda bay socon lahayd oo waxa laakiin markay jeeyay waxay furtay tilbaab waana iga dubaaladeer ama iga darajo sarreey تنميه هو حنيدي كما حد نقريا من لا يشكر وعلى الناس لا يشكر والميشن عادي هي لعبة اللعبة يا بخي في شكل سهل أنا لا يعمل واحد يا هو من حصل أنت كنت كرينا طلع السر أنا لا يعمل مركب حنيدي شيء يا علوش وسيداي ودنيا وتذكر حنت الدور وكانوا ورسلا تلكينا تيجا نلا شقية وعده سيدنا وروا يذكر ورحوس كير هذا النفط يا بني كلي كذا هو كلي بنادو إلى هنا كل شيء كانوا وحلي هاي هو مهم وانو إيمان يا ملحوينه ويقدم بيا أنا وحنا يسمى ذلك دبلية ذا كسي ورية ترافيك مدح اللي كسيرنا هو سير اللي لكن he's behind me guys وحبي take care of brother كده بدل ما السلام عليكم يا أيوم هتسيهاي ساعة وحفتي لو سوق وقولي هذه أكبر وفرح سنة عندما لما موسكا وتبيه كيك عن شري لكن تصور كيك والمدقو واحد نقول شو يسعون أنا أقول لك كم مسكحنا نقصنا هذا